dhegaystayaal waa taxanihii sheekooyinka qur-aanka maantana waa sheekadii qaaruun. qaaruun wuxuu ka mid ahaa qoladii nebi muuse, xigto aad isugu dhowna way ahaayeen. wuxuu ahaa ninuu eebba ugu deeqay hanti tiro dhaaftay iyo xoolo aad u fara badan. barwaaqo adduun ayaa gacnihiisa ku ururtay, barwaaqo in yar mooyee aan aadanaha badankiis abid u gacan gelin. hanti aan la xisaabi karin ayuu haystay, meel walba oo ay wax ugu jireeniba way buux dhaaftay. furayaasha khasnadihiisu way ka badnaayeen wax kor loo qaadi karo, inkastoo shaqaalo badan iyo dhallinyaro xoog lihiba ay isugu tagaan isuguna yeedhaan. nolol aad u sarraysa ayuu ku noolaa. dharka midka ugu quruxda badan ayuu xihan jiray. mar walba oo uu dibadda u soo baxana wuxuu ku soo bixi jiray hugakiisa ugu biricdasan. aqallada kuwa ugu waaweyn uguna gogol wanaagsan ayuu degi jiray. adeegayaal iyo addoon tiro badan ayuu lahaa, waxaana u weheliyey saaxiibbo aan agihiisa ka fogaan oo faraxgelintiisa u jeeban. si walba ayuu nolosha ugu raaxaysan jiray, wuxuuna u xusul duubi jiray raaxadu meesha ay ku dhammaato inuu gaaro, haddiiba ay raaxadu leedahay meel ay ku dhammaato. tan iyo waagii la is-uumay, xooluhu waxay ahaayeen quruxda nolosha iyo tiirarka ay ku taagan tahay kuwa ugu waaweyn. kii xoolo hela meelna ka buuxsadaa wuu kibraa oo qooqaa, wuxuuna u maleeyaa inaan cidina wax yeeli karin. waxay la noqotaa dadka kale oo dhan in laga abuuray dhoobo midda isaga laga abuuray ka duwan, markaas buu u qaataa in loo askumay isaga uun inay u adeegaan. markuu hadlo oo ay codkiisa maqlaan madaxa ayay u wada ruxaan. markuu farta meel ugu fiiqo ama uu wax u dirsadana way u kala ordaan oo fulinta dalabyadiisa u tartamaan. waa wada okoban yihiin, hadalkiisa cid maya odhan kartaana ma jirto. hoog baa ku dhaca qofkii inuu caasiyo isku daya, gaajo iyo gacno maranna waxaa muta kii u garbayn waaye oo ka gaabiya hirgelinta danihiisa. qaaruun dadka ifka ku nool kama uu duwanayn. wuxuu ahaa nin uunka kale la mid ah oo sida ay u dhaqmaan u dhaqma, wixii ay falaanna fala. wuxuu ku qooqay qoladii uu ka dhashay, wuuna gardaraysan jiray. intuu ku tuntay ayuu nafta isugu keenay, si walbana wuu u dhibaateeyey. kuwa hodanka ahi haddii ay si wacan u fakari lahaayeen oo waayaha noloshu sida ay dhabtii yihiin u baran lahaayeen, waxay ogaan lahaayeen xoolaha oo keliya inaan dadka lagu hanan karin, laguna gumaysan karin. waxay ogaan lahaayeen dadku inuu samafalkana addoon u yahay, oo haddii ay u fidiyaan amaba ay wax siiyaan ay agahooda isa soo tubayaan, wax alla wixii ay u dirsadaanna iyaga oo ku faraxsan ay halhaleel uga yeelayaan. sidaas bay laabaha dadka ku taabi lahaayeen, sidaas bayna xumi fara badan ku hor joogsan lahaayeen, sidaas bay naftooda khayr ugu soo jiidi kari lahaayeen, dadkuna ku jeclaan lahaa oo hareerahooda isu soo tubi lahaa. sidaas ayaa suuragal ah inay raallinimada eebbe ku heli lahaayeen, jannadiisana ugu guulaysan lahaayeen. ifka ayay magac wanaagsan ku joogi lahaayeen, aakhirana abaalmarin wanaagsan bay ku naaloon lahaayeen. ha yeeshee xooluhu sidoodaba garashada ayay indhatiraan, isla weynuduna garaadka ayay la tagtaa. hantiiluhu wuxuu arkaa oo keliya kooxaha istustuska badan. erayada laba wajiirayaasha oo qura ayuu maqlaa, ma dareemo qamuunyada kooxaha dulman iyo ciilka kuwa goomooni ay la taahayaan. qoladii uu ku dhex noolaa ayaa aragtay qooqii iyo gardarradii uu caadada ka dhigtay inuu qaaruun ku adkaystay kuna fogaaday. waxay arkeen inuu yahay nin hanti urursi keliya ku howlan, inkastoo inta kale ay gaajo ku seexato. nin ku mashquulsan hadba dharka midka ugu qaalisan inuu ku xaragoodo, inkastoo inta kale ay qaawan tahay oo suxud saaxu tahay. wuxuu intaa ku darsaday kibir, isyaalyeel iyo arxan la'aan. markay dhaqankaa ku arkeen ayay ku kahdeen. markaas bay isku dayeen isaga iyo khayrka inay isbaraan oo ay ka weeciyaan tubta qalloocan ee ku joogo. waxay kula taliyeen inaanu xoolaha ku hodmin ama aanu ku baadiyoobin, dadka qolada la'ahna uu u samafalo. waxay ku guwaabiyeen kuwa dhibaatada qaba inuu ilmada ka tiro una gargaaro. waxay u sheegeen haddii uu sidaas yeelo inuu dunida guudkeeda magac dheer ku heli doono, aakhirana ajar wanaagsan oo ah wax xoolaha ka khayroon kana raadhiis wacan. waxay yidhaahdeen dooni mayno adduunyada iyo ku raaxaysigeeda inaad faraha ka qaaddo
ama aad ka fogaato. waxaan kugula talinaynaa risiqa kiisa wanaagsan inaad u xusul duubto oo xalaal mooye aadan xaaraan afkaaga iyo mooradaada toona u quurin una dhoweyn. xalaasha uun ku dadaal oo iyada sidaa doonto ugu raaxayso. yaan xoolo urursigu kuwa baahan iyo kooxaha saboolka ah ku ilowsiin. weligaa wax taaro oo u asxaanfal siduu adiga eebba kuugu asxaanfalay. tabtaas haddii aad yeeshana barwaaqada aad haysato ayuu rabbi wax kuugu sii darayaa oo weliba kuu barakaynayaa. ogow, hantidu waa wax aan marna joogto noqon. waa wax sidii hooska u baaba'ah oo aan raagin. waa ammaano laguu dhiibtay oo lagaa coshan doono. sidaa darteed ha ku farxin maalka lagu siiyey oo ha ku kibrin. ka dhigo wax intaad ifka joogto aad danahaaga ku qunsato, liibaan aakhirana aad ku gaadho. jacaylka aannu ku hayno awgiis ayaa waanadana naga keenaya. waxa aannu rabnaa barwaaqada aad haysato rabbi inuu kuugu sii wado. waxaanna ka baqaynaa inuu xoolihiisa kaala noqdo oo aad deegto, jannadiisana uu berri kaga hoojiyo oo uu kuu diido. ha yeeshee qooqaagu ma wuu leeyahay dhaga maqalka waanada u daloola. ruuxuu kibirku indhaha tiraase ma wuu leeyahay qalbi xaqa u nuguloo weedha wanaagsani ay saamayn karayso. xoolo jacayl xaddhaaf ah ayaa qaaruun lagu naanaabiyey. hantidii badnaydna kibir iyo isla weyni buu ka qaaday. sidee buu ninka tilmaamahaas lihi waanadaas oo kale u dhegaysan karaa? ma waxaa jirta cid isaga amar siin karta oo waxyeelsiin karta? ma waxaa jira dad ku dhici kara inay u soo jeediyaan wacdi uu ku waantoobo? waxayba la ahayd kuwa waaninaya inay yihiin qaar xadgudub ku socda oo arrimihiisa gaarka ah faragelin ku haya. wuxuu u haystay inay yihiin dad iyagu ku hawshoon howlo isaga u yaale aan iyaga waxba uga 15 ahayn. tabtaas ayuu u fakarayey. taas baana ugu wacnayd jawaabtii qallayfka ahayd ee uu siiyey dadkii la talinayey. wuxuu ku yidhi, anigu waanadiinna uma baahni, maxaa yeelay caqli iyo garaadba anigaa idinka badan. aniga ayaa idiin mudan. xoolaha aan haystana waxaan ku helay waa aqoontayda iyo xirribta gaarka la ii siiyey. ma ahi nin taladiinna u baahane idinku isla taliya. idinku iswaaniya oo waanadiinna lafihiinna wax ugu tara, naftiinnana wax ugu qabta. isaga oo raba inuu sii niyad jabiyo ayuu dibadda ugu soo baxay. waddooyinka magaalada ayuu faanfaan awgiis dhex mushaaxay oo midba mar qaaday. wuxuu la soo baxay dhar, fardo iyo wax waliba wixii ay ka qurux badnaayeen, dadweynahana ina daraadar ku ridi kara. xoolo iyo hanti kaleba barwaaqadii rabbi ugu deeqay ayuu soo bandhigay. kooxihii danleyda ahaa iyo masaakiintii qoladiisa ayaa arkay dharka bilicda leh ee uu ku taxaashayo. fardaha shaaximan ee qaarna uu ku joogo, qaarna lagu hareer wada iyo adeegayaasha tirada badan ee dhinacyada ka socda. waa lagu wada dhaygagay. qof walibana inuu indhaha ka buuxsado ayuu ku dadaalay una soo degdegay. waxay ka xanuunsadeen inuu isna barwaaqadaa ku noolaado, iyaguna ba' iyo baahi joogto ah ay ku jiraan. markaasba intay sheekaysteen waxay is idhaahdeen, bal maxaa waayaabe annagana naloo siin waayey waxa qaaruun la siiyey. alla hoodo iyo ayaan badana. wuxuu ahaa nin isagoo kale aan waana waxba ka beddelin. nin aan qaraabo u dabicin oo aan qalbigiisu aragtida xigaalada ku dararin. muuqaalka dadka dhibaataysanin nin aanu dareemadiisa dhaqaajinoo baryada kuwa saboolka ah aan u dhegtaagin. waa in kolka seefta shareecada lagu dayaa oo xeerka eebba dhigay lagula tacaalaa. waa in samafalka lagu dirqiyaa oo u dadaalka khayrka lagu qasbaa. waa inuu nebi muuse si adag oo aan waanwaan lahayn ugu amraa inuu xoolihiisa sakada ka bixiyo, dadka saboolka ahna uu asxaanfalo. waa inuu u sheegaa midka baryootama iyo kan goomooniba hantidiisa inay ku leeyihiin xaq la yaqaan oo sheegan. ha yeeshee eebbe ayaa qalbiga qaaruun daboola saaray, naftiisana dhabcaalnimo ku daabacay. sidaa darteed wuxuu iska dhagooleeyey tusaalihii muuse. wuuba ku jeesjeesay oo weliba been abuur ku eedeeyey. jawaabtii foosha xumayd ee uu nebiga ugu jawaabay ayaa waxay ahayd, waxyaalo badan ayaannu muusow kuugu dulqaadannay. waxaad noola timid diin cusub, markaas baannu iska kaa dabagallay. marba waxbaadna fartay, kolkaas baannu kaa yeellay. taasina waxay ku geyaysiisay inaad nagu dhiirato ama aad nagu fiddo. iminka xoolahayagii baad u soo dhigatay, adiga oo doonaya inaad gacanta ku dhigto oo sidaad rabto aad adigu u maamusho.
dhabtii wixii aad qarsanaysay ayaa maanta kaa soo ifbaxay, waxaadna tahay faalalow beenaale ah. dooddii iyo murankii ayuu qaaruun ku dheeraaday. muusena wuu u jirib dhigay oo tiisii ayuu ku mintiday. waa amarkii eebbe, amarkiisuna muran iyo gorgortan kuma galo. wakhti kadib isaga oo cagajiidah ayuu qaaruun soo dabcay oo wixii la faraayey u hoggaansamay. aqalkiisii ayuu ku noqday. markaas buu xisaabay hantidiisa qaybta ay dadka saboolka ahi ku yeelan karaan. saa argagax baa ku dhacay. wuxuu la amankaagay xisaabtii u soo baxday. cudurkiisii baa ku soo noqday. qudurnimadii naftiisa ku daabacnayd ayaa ka adkaatay. wuxuu ku mintiday inuu xoolihiisa ku gacan adaygo si aan loola qaybsan, dabadeedna aysan wax isaga dhimin. marmarsiyo uu dadka ku marin habaabiyo ayuu ka fekeray. dacaayad foolxun ayuu waxmooday, wuxuuna u bayray been dharla inuu faafiyo. wuxuu yidhi, muuse waa nin istustus loogu dawgalay, wuxuuna ku doonayaa hanti iyo maal badan inuu sidaa ku urursado. haddii aannu u fiirsanno oo waxa laabtiisa ka guuxaya aannu hoos ugu dhacdhacno, waxaa noo caddaanaysa inuu yahay nin diinta aad uga fog oo haba yaraatee aan eebbe wax xidhiir ah la lahayn. wuxuu isku dayey xoolihiisa isaga oo adeegsanaya inuu dadka duufsado oo uu baadiyeeyo, muusena uu ku diro oo uu ka kala eriyo. hase ahaatee ilaah baa ceebeeyey oo sirtii uu maleegay shaaca ka qaaday. kutubta taariikhda iyo kuwa laqbaha qur-aanku siday xusayaan, haweenay uu duufsaday ayuu qaaruun ku dhiirigeliyey inay muuse masabidato oo inuu ka sinaystay ay ku eedayso. iyadiina way yeeshay. hase ahaatee kol dambe ayay madar lagu dhan yahay waxay ka qiratay inuu qaaruun masabidka ku dirqiyey, muusena uu si walba kaga fog yahay dembigii ay ku eedaysay ee masabidka ahaa. sidaas buu shirqoolkaanna uga badbaaday, wuxuuna ka qaaday wardheeri, maamuus wanaagsan iyo kalsooni siyaada ah oo uu naftiisa ku qabo. nabadgelya korkiisa ha ahaatee, nebi muuse markuu qaaruun ka quustay inuu hanuuno, tubta toosanna uu ku soo weecin waayey ayuu habaaray. eebbena ka baryey inuu ciqaabkiisa ku rido, xumaha uu faraha kula jiro iyo baadiyeyntiisana uu uunkiisa ka badbaadiyo. markaas buu rabbi habaarkiisii aqbalay oo qaaruun iyo dagaankiisiiba arlada la gediyey. koox u gargaartana ma uu helin, isaguna ma ahayn nin awoodda eebbe iska celin kara. dhulkii baa qaaruun liqay oo dalaq siiyey. maalkiisii iyo aqalladiisii waaweynaana ciidda hoosteeda ayay ku libreen, dib dambena shay qurax loogama arag. qoladii muuse iyo danlaydii raacsanaydna tusaale lagu taamilo qaato ayuu u noqday. wixii qaaruun lagu faray markii ay arkeen ayay dadweynihiina dib u fakareenoo ka qoomamoodeen wixii xumaan ahaa oo ay ku kici jireen. eebbe ayay uga mahadnaqeen ninkaa la ciqaabay in aanay iyagu la mid ahayn oo aanay sidiisii u dhaqmi jirin. waxay ogaadeen kana yaabeen awoodda eebbe ee kii uu doonana arsaaqada u waasicisa, kii uu doonana cidhiidhiga kaga dhigata. waxay garaysteen haddii aanay galladda eebbe ahayn in dhulka lala goyn lahaa, loona geli lahaa gaalada uu qaaruun ka mid yahay sida loo galo. dhegaystayaal, barnaamijkeenniina maanta halkaa ayuu inoogu idil yahay, wuxuuna ku saabsanaa qaaruun, waana taxanihii sheekooyinka qur-aanka kariimka ee aanu muddaba soo wadnay.